halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa muujadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo barta internetka ee bbcsomali.com. duhur wanaagsan akhyaarta hawada naga xiriirtay waa maalin axad ah 19 July sanadka 2020 Afrikada bari waxay haatan tilmaamaysaa labadii duhurnimo oo gow ah qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaan waxa kamid ah tirada dadka uu ku dhacay fayraska corona oo sarakacay dunida oo dhan maxay tahay xaaladda ardayda baraawe ee shalay ka baaqday imtixaanka shahaadiga ah mar haddaysan imaanin waxay kalifnay marka waqtigana uu socdo in saaka diyaarad lagu soo qaado ay ka soo gaaraan hadda imtixaankii way ka qayb galeen madaxweynaha koonfur galbeed ayaa runtii wax sahlay oo kharashka diyaaradda iyo baxshay waxaa kaloo aad barnaamijka ku maqli doontaan hogaamiyaasha reer Yurub oo weli isku marila sanduuq dhaqaale oo la doonayo in lagu barataaro dhaqaalaha wadamada reer Yurub qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan oo ay soo saartay Samiir Cabdullaahi Jaamac anigoo Xasan Cali Geela ayaan halkan idin kala socodsiin doona hadduu eebaha awoodda leedmo balse marka hore aan ku bilowno warkii caalamka waxaa diyaar la ah Mawlid Xaaji Cabdi Mawlid mahadsanid Xasan hogaamiyaasha midowga Yurub ayaa leh shir aan waqtiyeysnayn maalintii saddexaad iyagoo isku dayaya inay gaaraan isafgarad ku qotoma qorshaha dib uga soo kabashada fayraska corona Spain iyo Talyaaniga labada wadan ee sida ba'an u saameeyay cudurku ayaa ku adkaysanaya gaaritaanka heshiis degdeg ah sida ugu dhaqsiyaha badan iyagoo ku baaqaya in dib u dhac dheeri ah oo ku yimaada taageerada dhaqaale aanay cidna dan igu jirin ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel oo shirka ku soo biiraysa ayaa farta ku fiiqday in ay jirto rajo weyn laakiin waxay ka digtay in madaxdu ay maanta gaari karaan mucaahado dacwad oogista waxisdabamarinta ku salaysan ee ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa dib u bilaabatay maxkamad ku taala Jerusalem Mr. Netanyahu ayaa geeska gelinaya eedeymaha ku lug lahaanshaha bixinta hadiyado si warbaahinta uga helo warar aan xaraf lahayn dhageysiga dacwadda ayaa imaanaya iyadoo boqolaal qof ay isugu soo baxeen kadinka hore ee gurigiisa ku yaala Jerusalem iyagoo dalbanaya in uu iscasilo codayn ayaa ka socota goobaha ay gacanta ku hayso dawladda dalkaasi Suuriya halkaasi oo dadku go'aan ka gaarayaan doorashada xubnaha baarlamaanka looma ogola in ay tartamaan xubnaha mucaaradka rasmiga ku ah xisbiyada daacadda u ah madaxweyne Bashar al-Assad halka warkaasi aad kala socotaan waa BBC tirada dadka u dhintay fayraska corona adduunka ayaa hadda ka sara martay 600 oo kun oo qof ku dhawaad rubuc kamida tiradaasi ayaa ah Mareykanka dawladaha caalamka ayaa isku hawlaya in ay isku dheelitiraan khatarta dhaqaalaha ee jilbaha u dhigtay iyo waliba in la kordhiyo tallaabooyinka xayiraadaha si looga hortago in uu si xargagoosto fayraska dalka Canada bas gaar ah oo loo nashqadeeyay in uu ku socdo dhulka barafka ee loo yaqaan glaciers ayaa ku rogmaday buuraha Rocky iyadoo ay ku dhinteen 3 in ka badan tiradaasina ay dhaawacyo ku soo gaaray shilkaasi goob jooge ayaa sheegay in gaarigan barafka loo sameeyay uu ka lumay xakamihii uuna dawga ka duulay isla markaasna uu isgadiyay dhowr jeer ugu dambeyntii dacwad ogayaasha Faransiiska ayaa sheegay in nin loo qabtay baaritaanka dabkii sabtidii ka kacay kaniisadda Catholic ee ku taala magaalada Nantes falkaasi ayaa loo aaminsan yahay inuu yahay tuwan uu ka loo samaynayo dabka ayaa burburiyay qaybo kamid ah kaniisadda oo la dhisay qarnigii 17aad gurma degdeg ah oo ka qayb qaateen in ka badan 100 kooxaha debdemiska ayaa gacan ka geystay dabku inaanu sii faafin warkii dunida ayaa intaasi ku eeg aan dib idin kugu celiyo Xasan Geele iyo qaybaha kale ee barnaamijka aad ayuu mahadsan yahay Mawlid Xaaji Cabdi oo warka nala socodsiinayay dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka وهاجاج aan ku bilownay sidii aad warkaba ku maqlayseen tirada dadka uu galaaftay cudurka COVID-19 ee ka dhashay fayraska corona ayaa dunida oo dhan kor u dhaafay ilaa 600 oo kun oo qof wadamada Mareykanka iyo Brazil ayaa ah wadamada uu aad u saameeyay cudurkan waxaana haatan muuqanaysaa in ay sii kordhayso tirada uu cudurkan ku dhacayo caalamka oo dhan maalin kasta wararka arintaasi waxa inoo haya wariyaha BBC Steve Jackson waa kan Cabdirasaaq Xajatoosh oo soo jeedinaya 600 oo kun oo qof oo dadka cudurkan uu ku dhacay kadibna u dhintay ah
rubuc ka mid ah dalka Maraykanka ayay ku noolaayeen markii ugu horreysay Sabtidii oo keliya xaaladdan uu cudurkan adduunka ku keenana weli waa ay ka sii daraysaa dawladahana weli waxay la tacaalayaan sidii loo xadidi lahaa dhibaatada uu cudurkan keenay iyo faafistiisaba iyadoo ay uga sii darayso saamaynta dhaqaale ee cudurkan uu keenay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegaysa in xaaladaha cusub ee cudurka COVID-19 ee maalinlaha ah ay ka sara martay rubuc milyuun markii ugu horreysay tan iyo markii cudurkaasi uu dilaacay taasoo ka dhigan tiradii ugu badnayd hal maalin sarakaca ugu weyn waxaa laga diiwaangeliyey dalalka Maraykanka, Brazil, Hindi iyo Koonfur Afrika maalin ka hor ayay ahayd markii WHO ay diiwaangelisay tiradii ugu badnayd ee dadkii uu soo ridanayo cudurkan coronaviruska guud ahaan tirada dadka uu haleelay viruskana waxay kur u dhaaftay 14 milyan oo qof sida ay shaacisay jaamacad Johns Hopkins oo uu fadhigeedu yahay Maraykanka dhanka kale waxaa sare u kacay kiisaska viruska corona ee gobollada Maraykanka gaar ahaan gobollada dhaca koonfurta oo markii ugu horreysay oo markii hore ka cagajiidayay inay soo rogaan bandowga iyo inay dadka ku qasbaan xirashada maskarada afka iyo sankaba lagu xirto Brazil oo ah dalka labaad ee ugu dhimashada badan marka laga soo tago Maraykanka ayaa weli waxa kor u sii socda tirada dadka uu soo ridanayo xanuunkan isaga ah cabsaaq xajaatoosh nala socodsiinay warbixintii wariyaha BBC-da Steve Jackson ay taasi ahayd waa hagaag wararka Soomaalida haddii aan eegnana waxa maalintii labaad galay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee Soomaaliya sidaas oo ay tahayna qaar ka mid ah ardayda dalku ma aanay u suurtagelin shalaytay qaarkood inay imtixaankaasi deegaanadooda ku galaan waxa ka mid ah ardayda dugsiyada sare ee magaalada Baraawe iyo nawaaxigeeda kuwa oo maalintii shalay ahayd aanan imtixaanka u fariisan cilado farsamo aawadeed ardaydaasi ayaa maanta waxaa loo soo qaaday magaalada Muqdisho halkaasi oo ay imtixaanka ku qaadan doonaan inta hartay haddaba sida uu guud ahaan u socday imtixaankaasi iyo caqabadaha soo wajahay waxaan goor dhaweyd ka wareystay Cabdullaahi Goodax Barre wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya imtixaanaadkii waa bilowdeen si wanaagsan ay u bilowdeen runtii haddaan qiimeeyo ka wanaagsan sanadkii hore sidai ahayd jawi xasilan iyo arday diyaarsan ayaa kulannay waxaan qaadnaa survey oo marka imtixaanka ardayda ka soo baxaan waxaan weydiinaa siduu imtixaanku ahaa iyo sida dareenkoodu yahay si wanaagsan ay u aqbaleen waxayna rajaynayaan kulligood natiijo wanaagsan ma jiraan marka meelo qaar oo aysan ka dhicin imtixaanaadkaasi amaba aan la gaarsiinin ha way jiraan meelaha cadowgu joogo taqaanaa nimankan sharta badan ay joogaan iskoolaad yara ka jiro iskoolaadkaas suuragal nooma noqonin Somaliland kama socdo iyo Puntland marka inta kale wadanka si wanaagsan uga socdaa waxaan ognahay meelo ay ka mid tahay Baraawe oo kale in shalay ardaydii aysan galin imtixaanka ama aysan u fariisan oo maanta ardaydaasi Muqdisho loo soo qaaday waa run ku talagalka Baraawe wuxuu ardada joogta meesha imtixaanka geli lahayd waa 19 qof 19 qof marka waxyaalihii aan qorsheynay anoo qarashka iyo wax walba fiirinayno waxay ahayd inay marka ku galaan waa dhaqan aan leenahay waxbaan isku beeqaaminaa meeshii mataqaanaa meel kale u guuri karto imtixaanku geli karto waa la sameeyaa sida jallaqsi buuliburta oo kale oo jallaqsi buuliburtay tagaan marka ku talagalku saas uu ahaa laakiin sidii wax u dhaceenba mas-uuliyadda ciddii la doonaha laysku saaro ardadii ma imaan meeshii mar haddaysan imaanin waxay kalifnay marka waqtigina uu socdo in saaka diyaarad lagu soo qaado ay kasoo gaaraan hadda imtixaankii way ka qayb galeen wasiir halka ardaydaasi lasoo qaadayo oo la geynaya meel aysan aqoonin maxaa diidaya in imtixaanka lagu geeyo meeshooda talagalku wuxuu ahaa in deegaankooda imtixaanku oo magaalada Baraawe muxuu ahaa ay tagaan 19 arday Baraawe ay ku biiraan ardada 300 gaaraysa marka joog heshiisku saas oo ahaa aragtidu saas ay ahayd waana wax meel walba laga sameeyay laakiin dadkii abaabulay Baraawe ka abaabulaha inay keenaan ardada marka ayaa si wax ka noqdeen marka annagana dadaal zaa'id aan sameynay waxaan u ogolaanay inay xamar ku galaan maamulka khaasatan madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa runtii wax sahlay oo kharashka diyaaradda iyo baxshay iyo joogitaankooda muxuu ahaay xamar joogayaan wasaaraduna kaalintooda waxa weeye inay imtixaanka ugu soo wareejiyaan xamar wasiir Goodax maxaad ka yeelaysaan marka maadooyinka ay ahayd inay shalay galaan aysan u fariisan arday
ardaydaasi wax mushkilada male guddiga imtixaanaadka iyagaa xalinaya arrintaas iyagaa guddiga u madax bannaan inay go'aan ka gaaraan laakiin waxaan keliyahan kuu sheegi karaa in ama dib looga qaadayo ama loo qiimayn doono natiijooyinkoodii hore noocay noqotaba guddiga ayaa go'aan ka gaaraya waxaan ognahay sanadkii hore inay jirtay in mar aad joojiseen maadooyinka qaar oo la sheegay inuu qish baxay marka sanadkan arrintaasi maxaad kaga gaashaamanaysaan sanadkan qish ma jiro haddaad sanadka hore u fiirisid intaan imtixaanka la gelin ayaaba oo wixii bannaanka yileen waataad ogeedoo hal magaalo oo balambal ayuu ka kashifnay hal qof ayaa intaasoo fashila abuuray asigana xabsiga ku jiraa waana annaga ku celinay annagana kharash badan inagu kaliftay inaan dib ugu galno imtixaan ku qaadno sanadkan arrintaas horaan wa tabaabshaysanay aaminaadan kordhinay booliiska soomaaliyeed ayaa kaalin weyn ka qaatay technology fiican waa isticmaalayna lagu transfer gareeyo marka ilaa hadda ninbaa maalin dhaweed wuxuu sheegtay inuu imtixaanka hayo waxaas asigana xabsigu yaalla marka taxadirku hay-adaha amniga iyo wasaaradda aad bay u wada shaqaynayaan waxaa jira sidaad horeyba u sheegtay in meelo ay joogaan shabaabka oo kale oo ayan imtixaanka ka dhici karin ardaydaasi sanadkan imtixaanka ma sidaasuu ku dhaafay sidii sanadihii horeba ugu dhaafi jiray ayuu u dhaafayaa iyaguna mataqaanaa duruuftaasi ku jiraan xaqiiqdu waa sidaas waxaan ka qaban karno oo badan ma jirto laakiin markaa u fiirisid ardada guud waddanka aaday u yar yihiin inkastoo yaraantaasi aysan fasiraynin in laga maarmo haddana nambarka aad u yar yahay oo imtixaanka aan geli doonin dadka shardoonka agjoog kaasi waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Godax Barre oo goor dhaweyd qadka telefoonka igu waramayay dhageystayaal ayaa ra'yigooda ka soo dhiibanaya qodobkaas waxaana ka mid ah Cabdicasiis Daahir Aadan waxa uu jooga Cabud waxa uu yiri ardayda reer Baraawe ee shalay ka baaqday imtixaanka qaran ee dugsiyada sare balse haatan ay maanta dawladda Soomaaliya Muqdisho soo qaaday si ay imtixaanka u galaan runtii waan bogaadinay buu yiri waana talaabo wanaagsan waayo waa wax laga xumaado haddii imtixaanka uu dhaafo ardaydaasi Ismaaciil Macalin oo jooga isagana Tibal waxa uu leeyahay xaaladda ardayda dugsiyada sare ee Baraawe ee shalay aan u fariisan imtixaanka shahaadiga ah runtii waa wax laga xumaado waxa wasaaradda waxbarashada Soomaaliya looga baahan yahay buu yiri inay arrintaasi ku baraarugto isla markaana ay wax ka qabato duruufaha hor istaagi karaya in ardaydaasi ay imtixaanka galaan dhageystayaasha kale ee raayigooda soo dhiibanaya waa ay maatayeen halkan naga socotaana waa laanta Soomaaliga ee BBC-da BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. وهجاج إن وضمضة الرير يوروب هجاميوش وضع أيها ولي وحيكون كل ميان مقالة براسلس هالكاسي أو أرين سنة يعني ما أنتي سدحاد سيدي حلو جاري لها قرشل الدون أيو إن لجو هلو إن صندوق دقالة أو لجو برتها دقالها الرير يوروب كدي مركي وحيلي فيروس كورونا maalintii labaad shirkaasi oo shalay ahayd ayaa waxaa muuqanayay kala qaybsanaan weyn oo u dhaxaysa wadamo badan iyadoo wadamadu ay isku haystaan lacagahaasi qaabka ay tahay in loo isticmaalo iyo shuruudaha ku xiran sidoo kale waxaa jira wadamada qaar iyaga ay ka mid tahay Jarmalka oo iyaga doonaya in waxyaabo badan laga tanaasulo balse waxa ay hogaamiyaasha qaar ka digayaan in arrintaani aan si fudud lagu heshiin doonin wararka arrintaasi ku saabsan waxay noo haysa Samiir Cabdullaahi Jaamac madaxda midowga Yurub ayaa maalinkii saddexaad ku shiraya magaalada Brussels iyagoo ka wada hadlaya qorshe ballaaran oo ku aadan ka soo kabashada cudurka safmarka ah ee coronavirus dawladaha qaar ee xubinta ka ah midowga Yurub ayaa aaminsan in soo jeedinta ku aadan in 857 bilyan lagu deeqo soo kabashada dhaqaale ay aad u badan tahay oo aysan si toos ah u wada bixin karin hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay in laga yaabo in madaxda midowga Yurub ay maanta go'aan gaari waayaan sabab la xiriirta in ay weli isku hayaan deeqda la bixinayo iyo qaabka ay u baxayso maalintii saddexaad ee shirka ee aan horay loo qorsheynin ayaa imaanaysa kadib markii xaaladaha cusub ee fayraska corona ee caalamka ay sare u kacday hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay shalay in kiisaska maalinlaha ah ay ku dhow yihiin 260,000 oo kiis hogaamiyayaasha midowga Yurub ayaa kulankooda waxa uu soo bilowmay maalinnimadii Jimcaha waana kulankii ugu horeeyay ee is-horfariisad ah tan iyo markii uu bilowmay cudurka coronavirus waxaana la filayaa in ay maanta go'aan ka soo saaraan marka uu kulankooda soo gabagaboobo
mahadsanid Samira dhanka iyo Itoobiya haddaan eegnana in dhawaale waxaa jiray muran ku saabsan biyaha webiga Niil oo u dhaxeeya wadamada Masar iyo Itoobiya iyo Suudaan balse quwadaha ugu waaweyn ee isku haya ayaa ah Masar iyo Itoobiya in dhawaalena waxaa la arkayay Isaias Afwerki madaxweynaha Eritrea oo labada dhinac u kala dabqaadaya inkastoo la aaminsan yahay inuu hal dhinac la jira haddaba arrintaasi miyuu ku guuleysan karaa Faisal Roble oo arrimaha Geeska Afrika la socda ayaan arrintaasi ka wareysanay runtii safarkan wuxuu daba socdaa safarkii maalinta dhow madaxweyne Isaias Afwerki ku tagay Masar kollaba wuxuu rabaa in uu la wadaago Isaias inuu la wadaago Abiy waxa isagu uu tala wado iyo sida uu rabo inuu dhexdhexaadiyo laakiin ma hubno sababtoo ah hadallo aad iyo aad u kulul oo xagga Eritrea ka soo yeeray ayaa labadii cisho ee uu soo noqday madaxweyne Isaias laga dareemayay magaalada Asmara marka aynu eegno Afwerki oo ahaa madaxweyne in badan dunida ka go'doonsanaa sida muuqatana isbahaysi imika raadinaya in uu hawshan soo dhaxgala laftiisu doorkee inuu u janjeedha laga fili karaa inay danka Masar u janjeedho ayaa aad iyo aad la qoraya waliba wargeysyada carabtu ay sheegayaan talabaad waxa weeye Eritrea aad iyo aad bay ugu tiirsan tahay mucaamada carabuhu galfigu ama ay bixiyaan ha noqoto Sacuudiga oo aad iyo aad hadda u daba taagan Masar dalalka carabta ee khaliijkuna inaba Masar meel ay marto kama weecan karaan saawa xoog kaliya iyo xadaarada kaliya ay carabtu ilaashadaan hadda marka aad waxa loo tuhmayaa in Isaias halkaas uu u badinayo dadka qaar baa aaminsan inuu dhexdhexaadin wado oo aanu imika weli dhinna u janjeersana uu rabo inuu hawshan dunida reer galbeedka sumcad kaga raadiyo maadaama ay Mareykankii iyo wadamo badan oo waaweyn ay u samaara waayeen adiga wax cusub maxaa laga fili karaa bay kula tahay Afwerki imika hadiiba uu rabo dhanka dhexdhexaadinta haddii uu dhexdhexaad rabo dhexdhexaadintu ma dhaafayso wixii adduunka kale ku taliyeen oo ah in Itoobiya tanaasul ay samayso biyo xireenkana ay kala tashato Masar qawaaniintii ilaa 1921 la dhisayna oo intuba ka hadlayay in Masarna xaq ay u leedahay inay waxeeda ka hesho biyaha Itoobiyana u leedahay heshiiskii ugu dambeeyayna la saxeexay 2005 in adduunko dhan mowqifka ay isku raaceen Isaiasna uu ka xoojinayo bay u badan tahay sheekadu sida imika u eg tahay marka Itoobiya ay u muuqato inay cidla taagan tahay cid maanta u miciinaysaana aanay banaanka u soo baxayn Mareykanka ugu dambeeyay sida aad qiyaasi kartana waxa laga yaabaa Isaias oo tagay Masar inuu Abiy xaqu Isaias ka tagi lahaa saabay inuu Abiy ugu yimaado Asmara waxay ku tusaysaa in culayska badani maanta uu saaran yahay Prime Minister Abiy haddii aynu Suudaan aragno oo ay Suudaan imika taagan tahay inay dhanka Masar u janjeedho warkeedu cad yahay Eritrea tan tahay oo aynu aragno si guudna aynu dunidii u aragno in hawshii ay Itoobiya ku xuntahay sida aad ba sheegtay ma kula tahay waa la joogaa xilligii Itoobiya ay tanaasuli lahayd oo markii uu Mallas barnaamijka bilaabayay barnaamijkan wuxuu u bilaabay ma ahayn inuu buuxiyo biyo xidheenka biyo uu ka buuxiyo Masarna ay qadoodu ku dhacdo Mallas wuxuu isticmaalay siyaasad uu Itoobiyada kale kaga jeediyo arrimihii cakarnaa ee xagga siyaasadda inaba Mallas kuma tala jirin in webiga isaga Egypt ay isku qabsadaan hadda Abiy soo boodo ayay markii hore ku ahayd wuxuu rabay inuu ku awrkacsado laakiin hadda arrintii way ka gacan baxday Suudaan oo dhinaca kala martay oo shalayto ugu dambeysay iyana qaraar ka soo saartay waxaad moodaa in gabaldhac uu maanta la kulmay Abiy xagga siyaasadda marka runtii culays badan ayaa saaran ra'iisul wasaaraha haddaynu eegno dhanka Masar dhawaan saraakiil dalkaasi ka socda Hargeysa joogay oo madaxda Soomaaliland la kulmay tan lafteeda maxay ka saameyn kartaa murankan Niil ee geeska ka taagan waxaanu ka fili karaa in qudeeda Soomaaliland oo hatta aan ictiraaf wali helin lagu soo daray waxa la yiraahdo shaxda xasaradaha ka soo unkami kara biyaha Niil marka masaaridu ay u aragtay Soomaaliland inay tahay waax muhiim ah hadii arrimahaasi ay aad u shidmaan in ay Masar rabto inay Soomaaliland dhinaceeda soo mariso sida aad ogtahay Muqdisho iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dawladdiisu aad waxay ugu tolan tahay xagga Adsaaba marka in Soomaaliland hadda loo arka iyadana equationka ama shaxda siyaasadda geeska Afrika in masaaridu ay rabto inay waax badan kaga soo darto Soomaaliland socdaalkan ay masaaridu ku yimaadeen Hargeysana ay arrintaa ku lug leedahay
faysal rooble oo warramaya cabdiraxmaan dhimbil ayuu ahaa haatanna baafintii baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Caasha Saciid Xasan iyo Samiir Cabdulaahi Jaamac. mahadsanid Caasha. baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Siid Axmed Cismaan Eenow oo jooga magaalada Nairobi. waxa uu baafinayaa Suufi Cismaan Eenow. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Gaalkacyo sanadii 2017. haddaba haddii uu maqlayo Suufi Cismaan Eenow ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Siid Axmed Cismaan Eenow iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Nairobi. Canab Cali Maxamed oo joogto Boosaaso waxay baafinaysaa Maxamed Caynab Cali. haddaba haddii uu maqlayo Maxamed Caynab ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Canab Cali Maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Boosaaso. Jimcaale Faarax Muumin oo jooga Kalabeer waxa uu baafinayaa Xasan Faarax Muumin. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Yemen sanadii 2015. haddaba haddii uu maqlayo Xasan Faarax Muumin ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Jimcaale Faarax Muumin iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Boosaaso. aadan Khaliif Muxiidiin oo jooga Boosaaso waxa uu baafinayaa Haashim Khaliif Muxiidiin. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Cumaan 2016. haddaba haddii uu maqlayo Haashim Khaliif ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo aadan Khaliif iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Boosaaso. Aamina Bashiir Mustafa oo joogta Boosaaso waxay baafinaysaa Nuuro Bashiir Mustafa. waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Sacuudiga sanadii 2000. haddaba haddii ay maqlayso Nuuro Bashiir Mustafa ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Aamina Bashiir Mustafa iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Boosaaso. Abshir Maxamed Cumar oo jooga Boosaaso waxa uu baafinayaa Kamaal Maxamed Cumar. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Cumaan 2007. haddaba haddii uu maqlayo Kamaal Maxamed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Abshir Maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Boosaaso. Xaawo Cusmaan Xaaji oo joogta Kuntuwaare waxa ay baafinaysaa Cali Ibraahim Cali. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Zambia sanadii 2000. haddaba haddii uu maqlayo Cali Ibraahim Cali ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Xaawo Cusmaan Xaaji iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Marka. Falis Cumar Bashiir oo joogto Boosaaso waxay baafinaysaa Naciimo Cumar Bashiir. waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen 2015. haddaba haddii ay maqlayso Naciimo Cumar Bashiir ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Falis Cumar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Boosaaso. Salaad Nuur Xasan oo jooga Afgooye waxa uu baafinayaa Saalax Salaad Nuur. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Hong Kong sanadii 1994. haddaba haddii uu maqlayo Saalax Salaad Nuur ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Salaad Nuur Xasan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Marka. Cabdulaahi Axmed Jaamac oo jooga Boosaaso waxa uu baafinayaa Faarax Axmed Jaamac. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Mombasa 2000. haddaba haddii uu maqlayo Faarax Axmed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Cabdulaahi Axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Boosaaso. Masxaab Cabdi Axmed oo jooga Afgooye waxa uu baafinayaa Saalax Cabdi Axmed. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalkani Kenya sanadii 2011. haddaba haddii uu maqlayo Saalax Cabdi Axmed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Masxaab Cabdi Axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Marka. Maxamed Aadan Ducaali oo jooga Boosaaso waxa uu baafinayaa Hani Aadan Ducaali. waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen 2001. haddaba haddii ay maqlayso Hani Aadan Ducaali ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Maxamed Aadan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Boosaaso. Maryan Maxamed Cilmi oo joogta Kuntuwaare waxa ay baafinaysaa Macalin Axmed Cabdulle. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Hong Kong sanadii 2000. haddaba haddii uu maqlayo Macalin Axmed Cabdulle ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Maryan Maxamed Cilmi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Marka. Maxamed Ismaaciil Geelle oo
jooga boosaaso waxa uu baafinayaa anise ismaaciil geelle waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan yeman 2000 haddaba haddii ayna maqlayso anise ismaaciil amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo maxamed ismaaciil iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boosaaso. jaamac cabdulle axmed oo jooga walaweyn waxa uu baafinayaa saadiq cabdulle axmed waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan yemen sanadii 1999 haddaba haddii uuna maqlaya saadiq cabdulle axmed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo jaamac cabdulle axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay marka. taliso eedow geelle oo joogto boosaaso waxay baafinaysaa ismaaciil cabdi garasow waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan yeman 2005 haddaba haddii uuna maqlayo ismaaciil cabdi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo talisa iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boosaaso. doolay axmed mayow oo joogta kuntuware waxay baafinaysaa maka cali yaxye waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan sacuudiga sanadii 2000 haddaba haddii ayna maqlayso maka cali yaxye amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo doolay axmed mayow iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay marka. cadow ibraahim garaad oo jooga boosaaso waxa uu baafinayaa dulmar cadow ibraahim waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan maraykanka 2014 haddaba haddii ayna maqlayso dulmar cadow amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo cadow ibraahim iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boosaaso. carawey aweys xamuud oo joogta walaweyn waxay baafinaysaa nuur axmed warsame waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan maraykanka sanadii 2001 haddaba haddii uuna maqlayo nuur axmed warsame amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo carawey aweys xamuud iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay marka. aniso maxamed ibraahim oo joogta boosaaso waxay baafinaysaa maxamed cabdiraxmaan maxamed waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Itoobiya 2003 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed cabdiraxmaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo aniso maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boosaaso. luqmaan cabdi ibraahim oo jooga kuntuware waxa uu baafinayaa samiiro xasan cabdi waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan maraykanka sanadii 2000 haddaba haddii ayna maqlayso samiiro xasan cabdi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo luqmaan cabdi ibraahim iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay marka. xuseen cabdiraxmaan saciid oo jooga boosaaso waxa uu baafinayaa maxamed cabdiraxmaan saciid waxa ugu wardambeysay sanadkii 2003 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed cabdiraxmaan saciid amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo xuseen cabdiraxmaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boosaaso. guuleed cabdi iimaan oo jooga janaale waxa uu baafinayaa suldaano guuleed cabdi waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan sacuudiga sanadii 2005 haddaba haddii ayna maqlayso suldaano guuleed cabdi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo guuleed cabdi iimaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay marka. xaawo axmed isaaq oo joogta boosaaso waxay baafinaysaa mukhtaar axmed isaaq waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan mombaaso 1994 haddaba haddii uuna maqlayo mukhtaar axmed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo xaawo axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boosaaso. xaliimo cabdi yaxye oo joogta qoryoole waxay baafinaysaa cali xasan dayib waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan yemen sanadii 2008 haddaba haddii uuna maqlayo cali xasan dayib amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo xaliimo cabdi yaxye iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay marka. cabdalla muudey ibraahim oo jooga boosaaso waxa uu baafinayaa abuukar muudey ibraahim waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan yeman 2016 haddaba haddii uuna maqlayo abuukar muudey amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo cabdalla muudey iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boosaaso. cabdi axmed cali oo jooga afgooye waxa uu baafinayaa cabdirasaaq xasan jaamac waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalkani kenya sanadii 1995 haddaba haddii uuna maqlayo cabdirasaaq xasan jaamac amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo cabdi axmed cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay afgooye. cali warsame maxamuud oo jooga boosaaso waxa uu
baafinaya ikraam faarax maxamed waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan kenya 2001 haddaba haddii ayna maqlayso ikraam faarax amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo cali warsame iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boosaaso saadaam axmed cusmaan oo jooga baraawe waxa uu baafinayaa saalax axmed cusmaan waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan yemen sanadii 2011 haddaba haddii uuna maqlaya saalax axmed cusmaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo saadaam axmed cusmaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay marka baafintina maanta waa nageynta aad ayay u mahadsan yihiin Samiiro iyo Caasho oo baafinta halkaasi nagala socodsiinayay baafintaas ayaan u dambeysay idaacaddii duhurnimo oo ay soo saartay Samiiro Cabdullaahi Jaamac anigu Xasan Cali Geela ayaan halkaan idinkala socodsiinayay cidii ay wararka iyaga dhaafeen waxay dib uga heli kartaa barta internetka bbcsomali.com tan iyo 5 galabnimo hadduu eebaha wada leedmo waa bbc-doodan leh sidaa iyo nabad gelyo